الرحمن الرحيم. halkan waxaan jecelahay maanta in aan saddex arrin oo dhacdooyinkan ugu dambeeyay ah inaan wax yar mowqifka wicida ka sheegno. Ta ugu horeysa waxa weeye waxa xidhan gudoomiyihii garabka haweenka xusbiga ucid oo ah xusbi qaran مسؤولينta ugu sareysa xusbigana gudoomiyaha garabka haweenku waa kamid taasan u aragno taadi iyo xadgudub loola bareeray xusbiga ucid iyo gaar ahaan gudoomiyaha garabka haweenka Xaliime Raagi mas'uulka xusbi qaran madaxda xusbiyada qaranku waxay leeyihiin dhowrsanaan waxay mudan yihiin ixtiraam laakiin xukuumadan xishood leh waxay ka xishootaa iyadu ma jiro mudaharaad laguma xidhin oo qof quri deema mudaharaado waa keligeed marka inaan mudaharaad laga xidhin waxaad ku garataa waxa la xidhi lahaa dadka mudaharaaday bilis ma xidhin wasiirka arrimaha gudaha ma xidhin waxa laga xidhay madaxtooyada madaxweynuhuna ma xidhin hadda oo ayaan daray madaxweynaha qarsoon baa xidhay kulli ilaa inta anagu wararka aanu ognahay waxa weeye dumar baa xidhay aan xaq u lahayn inay adeegsadaan awoodaha dawladda iyo madaxtooyada oo ciday doonaanna RRU u dirin ciday doonaanna aan haddii alweydankeeda leeyahay waxa xidha cidan warbaahinta la dagaalamaysa madaxa bannaan ee iyadoon sharciga iska baalmarsan la iska soo xidhayo cidii la doono RRU-da loo adeegsanayo waxaynu ognahay falalkii ugu xumaa ee ka dhacay Somaliland oo dhan waxa adeegsanayay RRU-da dadka aan ku sheegayo aan xilla umada u hayn laakiin awoodaha toobalcaaraha adeegsanaya waxaanu leenahay madaxweynaha waa inaad xorriyadeeda u soo celisaa waa inaad xuquuqda bini'aadmiga ixtiraamtaa waa inaad xuquuqda muwaadiniinta ixtiraamtaa waa inaad xuquuqda xorriyadda xorriyadda hadalka ixtiraamtaa waana inaad saxaafadda madax bannaan xukuumaddaadu ixtiraamtaa haddii aad kari karayso cidina kuu sheegmayso waanu ognahay qodobka kale aan ka hadlay waxa weeye erigan hawada ka hadlaysaane hawada Soomaaliya ay la wareegtay horta hawo Soomaaliya ay la wareegtay ma jirto ilaa 1960kii hawada Soomaaliya iyo Somaliland waxa ka mas'uulahayd Soomaaliya waqtigii ay Soomaaliya burbursanayd dawladda dhexe aanay jirin hogaamiye kooxeedadu kala haysteen waxa si ku meel gaar ah u sii wada jirtay qaramada midoobay laakiin markii dawladda la dhisay dambe ay yiraahdeen waa dawlad aan ku meel gaar ahayn la ictiraafsan yahay dib bay ula soo noqotay Soomaaliya hawada cidda beenta sheegaysayna waxay ahayd wasiirka duulista hawada iyo wasiirka duulista iyo hawada oo dabcan wax walba ka been sheega ayaa sidii laba dal oo hawo isku haysta aynu nahay u dhigay laakiin maynaan ahayn laba dal oo hawo isku haystay sidaynu u qaybsanayno